نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها. أفر شيء qof kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado, inuu iimaanka jadiidiyo, inuu iimaanka ziyaadsado, iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka. diintaada ilaalso, diintaada mar walba cusboonaysiiso, diintaada baro. diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagalee risaaladda caalamka siday u gaari lahaydna adiga laga rabaa. diinta ilaalso, kuna qanac diinta, ku qanac. sayidina cumar radia allaahu canhu ayaa nin yahuudiyo saaxiibi ay yihiin oo reer bani qurayduu madiine ku soo maray. kelimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray. wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam. cabdullaahi binu haabit iyo nebiga wada fadhiya buu u yimiday. alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buuhi, yaa rasuulallah ma kuu bandhigaa? nin reer bani quraydoo saaxiiba nahay baan kelimaad tawraada ka soo qoree. fatagayara wajhu nabiyi calayhi salaatu wasalaam, midabkii nebiga isbedelay. balu fiirso, midabkii baa isbedelay, midabkii rasuulka. cabdullaahi baa yidhi: yaa cumar, hakiladka ummuk, waydaa gablantee nebiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin? cumar u naxay, warqaddii buu tuuray. wuxuu yidhi: radiinaa billaahi rabban, ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay. wa bilislaami diinan, diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay. dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay, caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba. wa bimuxammadin sala allahu calayh wasalam rasuulan wa nebiya, nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi, raalli baan ku nahay. fasura, nebigu wuu farxay, mambarkii buu fuulay. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam: ismac yaa akhi, dhegayso. dad aan waxba ahayn oo laysku ekaysiiyo, dadkeennu isku ekaysiiyaan iska daaye. undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam: low asbaxa muusa fiikum uma ittabactumuuhu wa taraktumuunii la dalaltum buu yidhi. haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen, waad hallowdeen buu rasuulku yidhi. antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin. nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay, nasiib ayaan ini ahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi. haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa, uu shareecaddiisii tawraad la iman lahaa, ood aniga iga tegi lahaydeen, ood isaga raaci lahaydeen, waad hallowdeen buu rasuulku yidhi. antum xadii min alumam, ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd, ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa, jannadana gelitaanka ugu horraysa, ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin, nasiib ayaa inagu helay buu nebiguhi. nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey, imaamkii ambiyada maadaamoon ahay, nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ee shariicaddayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa. ummaddiisii baa ilaahay naga dhigay, ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan. wuxuu nebigu yidhi: xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa. jannada nebiyadu geli maayaan, waa laga xarimay ilaa anugu aan ka gala maahine. wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii. ummaduhuna jannada geli maayaan ilaa ummaddaydu ay gasho maahine. qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic, markaasuu u duceeyey: wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii. waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa. asxaabtu waxay ku yidhaahdeen: aw walasnaa ikhwaanaka, miyaan anaku walaalaha ahayn? laa antum asxaabii, ininku asxaabtay baa tihiine, walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee i rumayn doona, iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi. sideed u garan doontaa? saxaabadu waxay yidhahdeen: dadkaas ma abad aragin adigu, iyakuna kumay arag. sideed u garan doontaa qiyaamaha? halkay wejiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi.
boqoliyo labaatan saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa boqoliyo labaatan saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takuunu rubuca ahli aljanna qulnaa balaa cabdullaahi ibni mascuud baa yidhi nebigaa maalinna uu riyo wuxuu nagu yidhi raalli ma ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raalli ma ku tihiin asxaabtu waxay yidhahdeen haa atardawna an takuunu thulutha ahli aljanna ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli baa nahay yidhaahdeen markaasuu nebigu yidhi walladii nafsu muxammadin biyadihi innii la arjuu an takuunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oon ku rajo weynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh inni ku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku ilaahay ummaddiisii buu inaga dhigay ilaahay wuu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan amaa ummaddan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysta waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummadin iga dambaysaana ma jirtee alaa falyuballaga shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam balliguu cannii adduu cannii raximakum allah allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allaahuma ansur man nasara diina muxammad ilaahaw ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allaahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum biاlzarci wataraktum aljihaada sallata allahu calaykum adil laa yanzicu xataa tarjicu ilaa diinikum markaad xoolodhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaaradda aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii iyo halgankii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu ina huwinayaa dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum baa layidhi ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xashka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fii kulli zamaan waa in la helo juhdu dacwa mar allii markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidkii iimaanka iyo akhlaaqdii islaamku u lahaa ninka mu'adinkaa markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shayddaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaaya markuu mu'adinku aadaanka dhammeeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamadda marka lagu dhiftana shayddaanku uu baxsadaa markay iqaamaddu dhammaatana qofku soo galaa salaadiisiiyo qofkii buu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaaddu waa farad eedaanku waa sunne shayddaanku muxuu salaadda uga baxsan laayahay uu sunnaha uga baxsanayaa lianna aadaanku waa dacwad salaadduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham ta keliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan cumar ma mara buu nebigu yidhi tog shayddaanna toga kaluu ka sii wacdaa lianna cumar saaxibulxaq buu haa saaxibulxaq shayddaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaadee shayddaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka allaahuma rabba haadihi dacwati taama lianna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falammaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuquubada imanaysa ninka daacigaa ee diinta ka shaqeeya way u badbaadayaa imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh markaasuu yaa rabbi yidhi qaryaddan aad igu tidhi soo halaag addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yidhi fabda' bihi cadaabka xaggiisa ka bilaab lam yatacammar wajhu saacatan fiya dadka aniga i caasinaya khayrkii caabudaya ee macsiyadda dhex dabbaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoominoo kama murugoone cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi
ألا وصلوا وسلموا على من أخبرتم بالصلاة عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل